بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين dadka inagu raagay aynu in badan jactadina markaa waan iska soo urursanayna hadalka gudoomiyaha xisbiga kulmiye islamarkaana ah murashaxa madaxweynenimo ee jamhuuriyadda Somaliland labada wasiir ee xilka maanta aanu kala wareejinayno xubnaha golaha wasiirada taliyayaasha ciidamada dadweynaha faraha badan halka ka soo galay rag iyo dumarba leh gudoomiyayaasha gobolada iyo meeyarada magaalooyinka bahda warbaahinta waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaa waxaa ii raacaa kulley annagu qolada xafladda waanu nahay hadalka ku dheeraan mayno waxa aanu sii sagootiyeynaa oo aanu u sii ducaynaynaa wasiirka iyagii hore cali maxamed waraan cadde oo ah wasiir soo jireenah inta wasaaradoodu qabtay iyo wixii uu kaga tegayna aan maanta halkan laga sheegayn in la wada ogsoon yahay waxaanu soo dhaweynaynaa oonu ballan qaadaynaa inaanu la shaqeyno oonu si buuxdana ula shaqeyno wasiirka iyaga cusub wasiir yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon oo aa wada garanaysaan dalkan ka soo shaqeeyey xilal ka soo qabtay ahaa barasaarkii horeeyey gobolka sool ahaa wasiirkii caafimaadka ee dowladdii ugu horeeyey cigaal ahaa xubin golaha wakiilada oo firfircoon muddo ugu ku dhowdhow 10 sano imikana loo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland u magacaabay wasiirka arrimaha gudaha ee qarankan jamhuuriyadda Somaliland waxaan leeyahay wasiir soo dhawow waxaan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo kalsami inaanu sidii aanu la shaqeynayno wasiirkayga hore kula shaqeynayno kugu soo dhaweynayna anigoo ka wakiila shaqaalaha wasaaraddeedu waa wasaarad ballaaran wasiir halkana laga wada sheegay dalka madaxweynaha iyo ku-xigeenka mooyane inta kale inagaa xukuma halkaas yaanu shaki naga geli waxay noo jooga gobollada barasaabo iyagaa xukumata caafimaadka iyagaa xukumata waxbarashada iyagaa waa madaxweyne gobol oo inoo fadhiya halkaa sidaa daraaddeed 14 gobol ee dalkaba madaxweynaha inaga uga wakiilo xukuma qolooyinka kale waa layma yararoo na garab yaaca xilka halka yaalla waa xil culus oo kuu sheegi maayo waad garanaysaa hase yeeshee dadweynahan doonayaa inay yar taabsiiyeen wasaaraddan wasaarad ballaaran tahay dalkana xukunto hadalka sidiisaa loo yidhaahdaa aada iyo aad baan kuu soo dhaweynayaa wasiir labadiinuba idinkoo mudan soo kaca halkan ereyadiinni waa idinka odhan doontaan iyo xil wareejintii waxaad qabanayseen soo dhawaada بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدني علي محمد وران عدي وقراني ساق الإلهي وزيره محمود وحيدي كل من إلهي كدمون دا شاشوي إله كشاشوي جاي إلهي بريغا يمي هدي إله بريغا يمي هذا الإله قلبه كدوا اسكسح بلا شاشوي لقرية taasiwaadka waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland sida xilka maanta u eegay uma eegin cali waracade shaqo kama soo bixi waa garanaysaan weligiiba waa shaqeynay waxa uu eegay madaxweynuhu kolba halka dalka dee hawshu taalaadu eegay iyo cidda wax ka qaban karta marka waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha inuu sugay oo gartay oo fahmay oo maanta sidii ugu doorashada habboonay ugu doortay wasiirka cusub calina meel looga maarmeeyo ribbo wax ka qaban kari waayeen oo calina meeshii lafdhabartii dalka in laga baxay laga soo gelayay baa cali joogay bal cali halkaasna inkastoo halkan ilaahay baad ka hay dadka laayeen halkaas
waxaa jooga dee libaaxii weynaayo Etoobiya markaa inaga ilaaliyo dhibaaxadu ha kululaanin waxaan kaloo ku darayaa wasiirka waxaa inoo sheegay mujaahid muuse biixi cabdi mujaahid waxaan ku faanaynaa waa xisbiga kulmiye iyo barakadiisii haddii aqalku wanaagsan iyo haddii cali waracadde shaqeeyeyba waa kulmiye oo shaqeeyey ee caliyaanu ku dhaafino cali hal iyo habeen la tasho cali waracadde yuu ku dhaafi waa libaaxii halkaa ammaanta aynu ku faanayno ee quruxda badan ee dadba ku ammaanayo waa libaaxii keenay cadow muuse yuu ku dhaafin waxaan kaloo intaa ku darayaa kelmad kale kelmaddaasi waxa weeyaan cali mana tegina mana dhoofin gawaadhidii alahaydee uu xeraystayna waa kaalkaa soo dhigay waxaa kaloo taalla halkaana tii ariya inoo joogto ugaadha tira ugaadha laga tegay